Arrimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, madaxda kale ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee halkan maanta nagala soo qayb galay gabagabeynta tababarkii 5 cisho ahaa ee halkan aynu isugu imanaynay. Waxaan kaloo halkan aad agaasimo guud ugu mahadnaqayaa macallimiinta cusub ee dhiigga cusub aynu rajaynayno inay ku soo kordhiyaan wasaaradda waxbarashada xagga macallimiinta oo ah ardaydii shaqada qaranka ee difcaddii labaad oo iminka haddii la yiri u bixi doona wax dhigista dugsiyada Somaliland. 5 cutub oo aad iyo aad muhiim u ah ayay ardaydu macallimiintanu halkan ku qaadanayeen casharadaas oo maalin walba aanu 8 subaxnimo ilaa 12 iyo barka aanu halkan ku qaadanaynay. Duruustaas waxay kala ahaayeen xeerka macallinka. waxa la yiraahdo xeerka macallinka. Macallinow xeerka ku qabanaya iyo xeerka intaad wax dhigayso ku qabanaya ee aad ka foojignaanaysaa inaad ogaato ama ku baraarugsanaato muxuu yahay. Wasaaraddu waxay leedahay xeerka waxbarashada macallinka oo Jamhuuriyadda Somaliland dhammaanteed laga isticmaalo oo ay macallimiintu wada og yihiin inta ay macallimada ku jiraan wixii daylqaaf ku ah ardayda laftooda ee ay wax u dhigayaan iyo iyaga laftooda wixii u keenaya ma og tahay dhaliil ama ay ku mutaysanayaan ciqaab inta ay macallimada ku jiraan haddii ay ku kacaan. waxyaalahaas oo dhan buu xeerkaasu qeexayay oo xambaarsanaa. maalintii ugu horeysay baanu qaadanay dariskaas oo macallimiinta waliba aanu siinay wixii material ahaa ama qalab ahaa ama sharciga laftiisii oo ay haddii la yiri gacan ku hayn ka dhiganayaan si ay mar walba ay u jeedaaliyaan oo ay wax uga sii bartaan. maanta oo ay u dambeysay waxay qaadanayeen tijaabo macallinimo oo 5 group bay macallimiinta yaryar isu qaybiyeen iyagoo ka faa'iideysanaya duruustii 4 cisho hore aanu soo qaadanay iyo maalinta shanaadba. marka bal hadda inay casharo tijaabo ah koox waliba intay isugu tagto oo tayo leh ay sameeyaan kadibna marka ay dhamaystiraan casharada ay sameeyaan koox waliba iyagoo oo raacaya nidaamkii halkan ay ku soo barteen in ay bal hadda iyagoo iska dhigaya ardaydii intooda kale kolba groupkaas ama kooxdaas uu macallin ahaan u kaco oo uu u gudbiyo inta kale iyagoo inta kalena ay yihiin ardaydii uu wax u dhigayay. wixii dardaarana ee aad u farayso dalka oo dhanna tababarkan wuu ku socdaa dabcan. marka waan kugu soo dhaweynayaa si aad arey guud u tiraadaan. kaliya noocan jaalada ku dardaaro macallimadu waa shaqo adag weyn runtii shaqo adag weeyaan laakiin waa shaqo nashaad leh weeyaan oo firfircooni leh hadduu qofku sideeda u qabto laakiin weyn subaxii oo dhan arday baad la joogaysaa ood barbaarinaysaa xood baraysaa fikirkiisa iyo maskaxdiisa wax ka bedelaysaa markaad ka tagtana adigii baa soo diyaargaroobaya casharada baad diyaarsanaysaa dee macallinka waa inuu diyaarsanaado waa inaad ku fikirtay su-aal kastoo aan maskaxdaada soo geli karin ardayga ku weydiin karo. marka dee ma garanayna ceeb maaha macallinku dee xaaraanka maaha ma garanayo laakiin inaana dee wax kale u sheegin baa ayaa labada dhibaataa. mar kasta waa inaad aad diyaar ahaataa diyaarna waxaad ku hanaysaa casharada inaad soo akhrido su-aal kastoo ka iman karta adoo aad soo weydiiso kadibna ardayga marka aad u jawaabto. marka habdhaqanka toosan carruurta inaan barno class managementkeeduna waa muhiim weyn. classkaad ku jirto haddii ardaydu hadasho eedda macallinkaas kale maaha ardayda maaha ardayda attentionkooda inaad u haysaa la doonayaa disciplinkooda inaad ilaaliso xeerka iyo ruulkaad class ku maamulaysa maalinta horeysaa tagtaanba halkaa ugu qora marka ardaydu inay sinaadaan sharciga markaa mid ku fuliso kalena aad ku fuliso imtixaanka markaa qaadaysan si cadaalad u qaadaan. responsibility-ga idinku wax weyn markaa classka tagtaan cashirkiina diyaarsada idinkoo garanaya maalinta waxaad dhigaysaan marka ardayga u dhigtaan intaanu classka dhammaana weydiiya. aad iyo aad baa mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaad si daacada qarankiina ugu shaqeyn doontaan intiina hadhow doonaysa inaad macallimada sii wadatana kuliyadda tababarka macallimiinta qaranka idin diyaara waa la idin tababarayaa.